Diyaaradii saddexaad oo sida muwaadiniin Soomaaliyeed ah ka soo qaaday dalka Sacuudiga ayaa ka soo degtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa ka soo duushay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga waxayna siday dad gaaraya 127 ruux oo kala ah 24 dumar ah iyo 102 qof oo rag ah oo ku xiriirna gudaha dalkaasi Sacuudiga. Laba maalmood ee la soo dhaafay waxaa Muqdisho soo gaaray dad laga keenayay dalkaasi Sacuudiga kuwaas oo muddo halka ku xanibnaa. Diyaaradii tan ka horeysay ee ka soo degtay Muqdisho qaybta labaad ee dadkaasi ayaa keentay tiro dad ah oo gaarayay 126 ruux. Sidoo kale diyaaradii ka sii horeysay Jimcadii soo degtay Muqdisho ayaa iyana waxa ay soo dejisay 132 ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad laga keenay dalka Sacuudiga. Dadka saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay Muqdisho la keenayay ee ka imaanaya dalka Sacuudiga ayaa u badnaa caruur iyo haween kuwaasi oo Sacuudiga muddo ku xanibnaa, waxaana la sheegay in badankooda xabsiyo ay ku jireen oo laga kala qabtay magaalooyinka dalkaasi Sacuudiga, halka kuwa kalena ay isku dhiibeen booliiska baacsanayay si loogu soo celiyo dalkooda. Dadkan ayaa waxaa ku jira dad ka soo tagay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa kuwaasi oo muddo ku xanibnaa dalka Sacuudiga, isla markaasna dalabkii ay u dirsadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka aqbashay in dib loogu soo celiyo deegaanadooda, waxayna inta badan safarro dhulka ku tagi doonaan magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. Guddiga ay dowladda u xil saartay soo celinta dadkan ayaa waxa ay habeen ka hor garoonka Muqdisho ka sheegeen in 3 loo qaybiyo dadka laga soo celinaya Sacuudiga, waxaana galabtay la keenay qaybtii ugu dambeysay oo dadkaasi ku xirnaa dalka Sacuudiga. Guud ahaan dadka laga soo celiyay saddexdii maalmood Sacuudiga ayaa waxa ay gaarayaan 384 qofood oo isugu jira caruur, haween iyo dad da' oo ay sidoo kale qayb ka yihiin rag. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in soo celinta dadkan uu amray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka soo shaqeeyay guddi loo xil saaray soo celinta dadka Soomaaliyeed ee ku xaniban daafaha dunida. Hase yeeshee waxa aanu dadka noqonaynin dadkii ugu dambeeyay oo laga keenay Sacuudiga, iyadoona sidoo kale ay jiraan dad ku xaniban weli halkaasi.